noloshooda aad ayay u adkeed sidoo kale waxa ay ahaayeen qoys sabool ah nasiibku cidna gooni uma lahan noloshuna waa ay kala duwan tahay ayaamuhuna sidaasoo kale ayay u kala qiimo badan yihiin qisada maanta aan ka hadli doono waxa ay tahay qoyskii soo gatay kitaabka quraanka kariimka ma aysan garanin sidoo kale ma aysan aqoon wax kale oo cilmi ah waxayna ahaayeen qoys muslimiin ah waxaana idiin soo gudbi doonaa qisadaas iyo mucjisadii ka dhalatay ayaan idiin soo gudbi doonaa waxaadna ka daawanaysiin barta YouTube-ka aan ku leenahay Socdaal 24 iyo aaladeena TikTok-ga Socdaal 24 qisada waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan waxa ay ahaayeen qoys sabool ah waxa ay ku noolaayeen baadiyaha wadanka markaas ay ku nool yihiin sidoo kale waxay ahaayeen dad ka koobnaay ama qoys ka koobnaay aabe iyo xaaska ayay ahaayeen wax kale oo caruur ahni dunidan uma kor saarnaayeen waxay ahaayeen laba qof oo sidoo kale aad isku jecel waxa ay keensadeen qorshe cusub oo ay markaas rajeynayeen noloshooda inay wax badan ugu bedeli karaan waxayna ku heshiiyeen lacag fara badan in ay meel dhigtaan maalin walbana wixii ka go'a ay meel dhigi jireen lacagtii in muddo ah ay u aruurtay sidii lacagtii u aruurinayeen ay maalinkii dambe waxa ay go'aansadeen in lacagtii ay soo bixiyaan ma aysan u degsaneen wax qorshe ah oo lacagtaas lagu qaban doono inkastoo ay u degsaneen oo kaliya lacagtaas inay aruursadaan muddo markii lacagtii aruuriyeen ay soo bixiyeen lacagtii waxa ay noqotay lacag aad u yar inkastoo hamigoodu oo aad u sareeyay haddana lacagtii intii ahayd ay ku qanceen markii lacagtii ay la soo bixeen ay isweydiiyeen waxa lagu qaban karo qof walba fikrad ayuu keenay fikradiina waxay noqonaysay mid socoto ama mid aan soconaynin labadooduna waxay ahaayeen laba qof oo aan baran barashada quraanka kariimka sidoo kale wax kale oo cilmi ahna ma aysan baran sidii xaaladii u socotay markay waayeen oo fikradahooda isku darsadeen wax lacagtii lagu qabto gabadhii ayaa soo booday markaas ayay dhahday lacagtan waxaan ku soo xurmeyseenaa kitaabka quraanka kariimka ma sha Allah labadoodu waxay ahaayeen laba qof ma yaqaanaan quraanka haddii kitaabka soo gataan sidoo kale ma yaqaanaan laakiin qalbigooda Allah wuxuu geliyay wax qurux badan kaasi oo ahaay kitaabka quraanka kariimka maalinkii ay israaceen kitaabka ay keeneen guriga ayna kitaabkii keeneen markii kitaabkii guriga ay keeneen ayaa su'aal la isweydiiyay su'aashaas oo ahayd yaa kitaabkana barayo labadoodu ma yaqaanaan oo quraanka ma kici karaan laakiin waxay ka jecel yihiin qalbiga wax kale oo caruurana ma haystaan oo guriga mu joogaan gabadhi ayaa mar kale qorshe keentay maalinkii dambe waxay raadiyeen macallin dugsiga ay soo heleen barashadii quraanka kariimka ay sidaas ku bilaabeen maalinkoodii labaad si qurux badan ay ugu bilaawday jadwalkii noloshoodii waa ay soo noqdeen guriga ayay imaadeen guriga markay imaadeen ayay haddana waxay ku fakareen kitaabka quraanka kariimka ee sharafta leh in aanan la dhigi karin meel walbo haddii meel xun la dhigana ee ka dhala karto mucjiso markaas ayay ku fakareen gurigu waa cid noloshooda ay iska hoos tahay oo gurigu ma yaala miis oo mara kaloo daahira ma taalo oo meel kaloo la saara ma taalo waa ay fakareen xaaladda ayaana jiq ku noqotay oo kitaabka waxa ay ka cabsadeen meel wasakh haddii dhigaan inay mucjiso ka dhala karto markaas ayay waxay ku fakareen habeenkii markii la gaaray ayay taladii xumaatay kitaabkii gacanta ayay ku haayaan dhulka ayay ka ilaalinayaan ayaga oo markaas weyneynaya khayrka iyo faa'iidada ku jirta kitaabka markii habeenkii la gaaray oo ay taladii ku xumaatay oo wax ay sameeyaan aqoon waayeen oo guriga miis oosan oolin ayuu ninkii tala keenay
taladaas maxay tahay waad isweydiinaysaa adiga ahaan maxay kula tahay taladii oo ninka keena ayaa waxay ahayd waxa uu dhahay 6 saac oo hore adiga hurid kitaabka aniga ayaa heed doono 6 saac oo dambe ayaad soo kacaysaa kitaabka ayaad naheynaysaa sidaas ayay habeenkii kitaabkii ay u haayeen subaxii markii ay soo kaceen waxa ay ku farxeen waxa ay arkeen mucjisadii ka dhalatay ama waxa ay arkeen wax sidoo kale ay ku farxaan labadoodii waxa ay soo kaceen ayagoo xifdisan barashada quraanka kariimka 114 ayay xifdiyeen oo dugsi maysan u gelin sidoo kale tafsiirka quraanka kariimka ah ayay xifdiyeen ma sha Allah sida ay u karaameeyeen kitaabka sida ay u wanaajiyeen sida u ilaaliyeen Allah wuxuu ugu bedelay in 114 ee quraanka ee qalbigooda uu ku shubo sidoo kale tafsiirka quraanka kariimka ah ayuu sidoo kale kor ka xifdiyeen qisadan nuxurka faa'iidada ee leedahay ayaa waxay tahay sida ay u ilaaliyeen kitaabka Allah wuxuu ugu bedelay wixii ay rajeynayeen sidoo kale qoyskaas waxa ay yihiin qoys mudan in lagu daysado sidoo kale adiga daawanayo qisadan oo kale hore muu aragtay haddii aad aragtay oo ku faraxday mar walba walaalka la jeclaaw khayrka iyo wax walba Allaheena jecel yahay waxa idin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal waxaad ka daawanayseen barta YouTube-ka aan ku leeyahay Socdaal 24 iyo aaladeena TikTok-ga Socdaal 24 hooyga qisooyinka Socdaal 24 mar walba wuxuu diyaar u yahay qisooyinkan isleenahay saaxiibadii nagu xiran wax badan ay ka faa'iidi karaan haddii wax badan ku faa'iiday saaxiibada share u dheh si aan helno saaxiib adigoo kala nagu soo biir qisooyinka sidoo kale heesid waana la soo wadaagi kartaa tani inta ku kulmi doono qiso noocan oo kala waxa idin leeyahay nabadgelyo saaxiib waxaan soo dhawaaw